kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa channelka xusuus ujoog media saacaduna waa 2:16 daqiiqo qodobada wararka caawaan idin haynana waxa kamid ah faahfaahin ka soo baxaya sarkaal ka tirsanaa maamulka Puntland oo maanta lagu dilay magaalada Boosaaso Amisom oo muddo 30 cisho xanibtay dhaqdhaqaaqa xarunta xalane ee magaalada Muqdisho Mareykanka oo sheegay in duqeyn dhinaca cirka ah uu ku dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab dawladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay inaan la hakin raashinka iyo daawada dalka gudihiisa isaga kala gooshaya diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya oo maanta ka bilaabanaysa magaalada Baydhabo madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Jubbaland oo been abuur ku tilmaamay in uu wada hadal la galay dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Somaliland oo joojinaya duulimaadyadii uga imaan jiray dalalka Yurub iyo waqooyiga Ameerika mar kale is arag wanaagsan daawadayaal intaas aad maqasheen waxay ahaayeen akhbaaraadka ugu waaweyn ee warka channelka xusuus ujoog media fadlan hadii aad ku cusub tahay channelka waxaan ka dalbanaynaa inaad subscribe noo saarto sidoo kalena muuqaalkan aad la wadaagto saaxiibadaada kale mar waliba inagala soco xusuus ujoog media waxaan ku bilaabayaa faahfaahin kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan sarkaal ka tirsanaa maamulka Puntland oo maanta lagu dilay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari dablay hubeysan ayaa waxa ay bartamaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ku dileen sarkaal ka tirsanaa ciidanka ilaalada canshuuraha bariga ee maamulka Puntland ila ka tirsan laamaha ammaanka oo diiday in magacooda la xigto ayaa warbaahinta u xaqiijiyay dilka sarkaalkaasi oo ka dhacay gudaha maqaayad ku taala bartamaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari sarkaalka la dilay waxa magaciisa lagu sheegay Aynab Maxamed Dunge waxaana goobta isaga baxsaday kooxihii weerarka geystay oo aan wali la aqoonsan heybtooda iyo cid ay ka tirsanayeen toona ciidamada amniga ayaa haatan gudaha magaalada ka wada howlgallo lagu baadigoobayo dableydii weerarka geysatay iyadoo aysan jirin wali cid sheegatay mas'uuliyadda dilkaasi inta badan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxa ka dhaca dilal qorsheysan iyo mararka qaar oo magaaladaasi ay ka dhacaan qaraxyo lagu dilo xubno ka tirsan maamulka Puntland waxaana wali jirin talaabo rasmi ah oo ay qaadeen maamulka Puntland oo ay ka baaqsanayaan dilalka loo geysanayo mas'uuliyiinta iyaga ka tirsan xilli ururka Daacish halkaasi ay dhaqdhaqaaq xooggan ku leeyihiin Amisom ayaa muddo 30 cisho waxay xanibtay dhaqdhaqaaqa xarunta xalane ee magaalada Muqdisho kadib markii qof ka shaqeynayay gudaha xaruntaasi laga helay caabuqa coronavirus howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee loo yaqaan Amisom ayaa xadiday dhammaan galitaanka iyo ka bixitaanka xirada militariga ee xalane ee magaalada Muqdisho Amisom ayaa waxa ay sheegtay in xirada ay xayiraada saarnaan doonto muddo 30 cisho ah cudurka coronavirus awadi wayaan uu soo saaray howlgalkaas ayaa waxa lagu sheegay in iyaga oo tixgelinaya baahida loo qabo in la xakameeyo in uu san faafin cudurka coronavirus ee safmarka ah sidoo kalena loo dhowrayo caafimaadka iyo badqabka dadka degan xiradaas iyo kuwa soo booqanaya ayaa Amisom waxa ay xirada xalane ku soo rogtay xayiraad muddo 30 cisho ah oo ka bilaabanaysa saqda dhexe ee 29 bisha Maarso oo maanta ku beegan talaabadaas ayaa dib loo eegi doonaa hadii ay baahi kale soo baxdo xayiraadaas waxa ay sababaysaa in la joojiyo dhammaan hawlihii dhismaha dhaqdhaqaaqa gawaarida saadka iyo hawlaha kale ee ganacsiga ee xirada iyo waliba dukaamada iyo aaga gawaarida lagu dhaqo bayaanka ayaa dhanka kale lagu sheegay in kooxaha bixiya adeegyada aasaasiga ah iyada oo la eegayo kiisas iyo xaaladahooda gaarka ah loo ogolaan doono inay soo galaan gudaha xarunta xalane jimcihii ayaa xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadka ee dalka waxay xaqiijiyeen in kiiskii saddexaad ee coronavirus laga helay magaalada Muqdisho gaar ahaan xirada militariga ee xalane qofka xanuunkan laga helay ayaa lagu sheegay inuu yahay ajnabi la shaqeynayay hay'adda qaramada midoobay xafiiska ku leedahay magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta xalane oo maanta warkaasi laga soo saaray qaramada midoobay ayaa sheegtay in xanuunkan ay si adag ula tacaalayso ayna qaaday dhammaan talaabooyinkii diyaar garowga iyo qaabkii loo xakameyn lahaaba Mareykankana waxa uu sheegay in duqeyn dhinaca cirka ah ay ku dileen xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab war ka soo baxay dawladda Mareykanka ayaa waxa lagu sheegay in dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay ku dileen qaybo kamid ah gobolka Baay kadib markii duqeyn dhinaca cirka ah la beegsaday
duqeyntan ayuu Mareykanku sheegay inay si gaar uga dhacday deegaanka Buulo Fulay ee gobolka Bay waxaana iska kaashaday taliska Mareykanka ee Afrika iyo dawladda federaalka Soomaaliya sida lagu sheegay qoraalka ka soo baxay Africom. qoraalka ayaa waxaa lagu cadeeyay in laba dagaalame oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab lagu dilay duqeyntaasi isla markaana aysan jirin khasaare soo gaaray dadka rayidka ah. 10kii bishan Mareykanka ayaa duqeyn uu ka fuliyay deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu ku laayay dad shacab ah isaga oo duqeyntaasina ku sheegay in uu ku dilay dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab waxaana xusid mudan in hore hay'adaha u dooda xuquuqul aadanaha ay Mareykanka ku eedeeyeen in duqeymaha uu ka fuliyo Soomaaliya ay waxyeelo ba'an ka soo gaarto dadka rayidka ah ee waxba galabsan. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in aanan la hakin raashinka iyo daawada dalka gudihiisa isaga kala gooshaya. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in aan la hakin waxyaabaha lagama maarmaanka u ah bini'aadamka. dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in aan marnaba la hakin waxyaabaha lagama maarmaanka u ah bini'aadamka sida qutul duruuriga xilli dawladdu shalay soo saartay go'aan lagu hakinayo duulimaadyada dalka gudihiisa ah. Axmed Macalin Xasan maareeyaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sheegay in duulimaadyada la hakiyay ee gudaha dalka kaliya ay yihiin tan rakaabka dadweynaha balse aysan ku jirin alaabada qutul duruuriga sida raashinka, daawada, qalabka baabuurta iyo wixii la mid ah oo dadweynaha aysan ka maarmin. maareeyaha ayaa sidoo kale sheegay in dawladda Soomaaliyeed iyadoo u tiraysa shacabka ay ku dadaalayso in culays fara badan aysan kala kulmin hase ahaatee ay u digayso dadka ka been abuuranaya oo markaasi sheegaya warar aan xaqiiqda ku salaysan isla marhaantaana waxa ugu baaqay in dadkaasi sheegaya wararka aan xaqiiqda ku salaysnayn inay ka waantoobaan. Axmed Macalin maareeyaha hay'adda duulista rayidka waxa kale oo intaa ku daray in alaabaha dibadda ka yimaada sida raashinka, daawada iyo waxa la midka ah ay fasax u yihiin in dalka la keeno. wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliyeed ayaa shalay ku dhawaaqday in si ku meel gaar ah loo hakiyay duulimaadyada dalka gudihiisa si looga hortago xanuunka coronavirus. waa hagaag daawadayaal wali waxaad daawanaysaan warka channelka xusuus ujoog media markaana madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee Jubbaland ayaa waxa uu been abuur ku tilmaamay in uu wada hadal la galay dawladda federaalka Soomaaliya. madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee dawlad goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa ka hadlay warar maalmihii la soo dhaafay soo baxayay oo sheegaya in wada hadal uu u socdo isaga iyo madaxda dawladda federaalka Soomaaliya. waxa uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland in wararka la faafiyay ee ah in uu wada hadal kula jiro dawladda federaalka ay yihiin kuwa been abuur ah oo la doonayo in bulshada lagu jahwareeriyo. sidoo kale waxa uu sheegay Maxamuud Sayid Aadan in madaxda dawladda ay wada hadli karaan hase yeeshee wada hadalkoodu uusan ahayn mid qarsoodi ah balse uu noqonayo mid la wada og yahay. madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya uu wada hadal la gali doono kaliya haddii ay shacabka iyo xukuumadda Jubbaland u wakiishtaan isla markaana la doonayo in lagu xalliyo khilaafyada jira. isaga oo sii hadlayay Maxamuud Sayid Aadan waxa uu tilmaamay in la yaab ay noqotay markii uu maqlay warar ay warbaahinta qaarkood baahiyeen oo ah in wada hadal uu kula jiro dawladda federaalka wuxuuna dadka faafiyay warkaas uga baaqay in ay iska daayaan wararka been abuurka ah. dhinaca kale waxa uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka koobaad ee dawlad goboleedka Jubbaland in dawladda federaalka aysan wali soo dhaweyn dib u doorashadii madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uuna jiro wada shaqeyn la'aan labada dhinac ah hase yeeshee ka Jubbaland ahaan ay doonayaan in la xalliyo khilaafyada jira si loo wada shaqeeyo. diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa maanta waxay ka bilaabanaysaa magaalada Baydhabo. waxaa la filayaa in magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ay ka bilaaban doonto ama ay ka bilaabato diiwaangelinta musharaxiinta u taagan qabashada xilka guddoonka baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. guddiga doorashooyinka baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa shalay ku dhawaaqay shuruudaha laga doonayo qof waliba oo murashax ah iyo xilliga ay ku dhacayso doorashada. diiwaangelinta musharaxiinta gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed iyo labadiisa ku xigeen ayaa ku eg maalinta berrita ah iyada oo doorashada la filayo inay dhacdo 1 Abriil oo ku beegan Arbacada soo socota. ugu dambeyntiina maamulka Somaliland ayaa joojinaya duulimaadyadii uga imaan jiray ee dalalka Yurub iyo waqooyiga Ameerika iyadoo xusid mudan tahay in horay Soomaaliya ay u saarneed xayiraad ku aadan duulimaadyada caalamiga ah. madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici
ahna gudoomiyaha guddiga heer qaran ee u diyaargarowga iyo ka hortagga xanuunka COVID-19 ayaa soo saaray war-saxaafadeed lagu joojinayo rakaabka ka imaanaya Yurub iyo Mareykanka. war-saxaafadeed ka soo baxay madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxaa lagu sheegay in guddiga uu qiimeyn ku sameeyay rakaabka ka imaanaya wadamada Yurub iyo Mareykanka ee u soo safraya deegaanada Somaliland ay keeni karaan cudurka coronavirus oo wadamadaas uu ka dilaacay, iyaga oo soo saaray go'aamadan in laga bilaabo maalinta Isniinta ah ee soo socota in la joojiyo dhammaan diyaaradaha ka yimaada wadamada Yurub iyo waqooyiga Mareykanka iyo in diyaaradaha ka imaanaya dalalkaas aysan Somaliland keeni karin wax rakaab ah. hadalka ka soo yeeray maamulka Somaliland ayaa waxa ku soo aadaya xilli 16 bishan aynu ku guda jirno ee Maarso dawladda federaalka Soomaaliya ay shaacisay in la joojiyo dhammaan duulimaadyada caalamiga ah ee dalka iman jiray. waa tahay daawadayaal intaas waxa ku dhan wararka channelka Xusuus Ujoog Media oo aad kala socoteen channelka. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka Xusuus Ujoog Media waxaan ka codsanaynaa in aad subscribe saarto channelka, gambalaalkana aad furato, muuqaalkana aad la wadaagto saaxiibadaada. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalada aan bartan soo